xayawaanka haddii aad saaxiib ka dhigato waa suurtagal inay kaa dugaashadaan dadka kale mararka qaarna ay kaa bartilmaameedsadaan bulshooda kale. Gaarana Nuure waa gudoomiyihii hore ee degmada Garbaharey balse hadda waxa uu xanaaneeyaa tiro raxa shimbir ah kuwaas oo uu quudiyo subax walbo. Cantallaahi ama Quntallaahi booloboolada ayaa ka mid ah shimbiraha uu quudiyo waxa ayna ka dhex garanayaan bulshooda kale si aad ah ayayna saaxiib ula yihiin. Mar aan waraysi la yeeshay waxa uu ii sheegay hadda inay ku ballansan yihiin inay shirarka kala qayb galaan wafuudda magaalada imaanaysana ay la soo dhaweeyaan sidoo kalena munaasabadaha cajiibka ah ay kala qayb galaan xafladahooda. Gaarana Nuure waxa ka muuqata haddana subax walbo kama daalo quudinta shimbirahan. Shimbiraha waxay ka kala yimaadaan goobo kale waxa aynu ku sugaan goobta uu ku quudinayo subax walbo iyagoo oo markii aad daawato ay saaxiib dhow kala yihiin bulshada kale ee goobta ku sugan. dhowr sano aan arrintan ka shaqeynayo xawayaankan wax siinayay xawayaankan waxaan ku fakeray horta naflay baahan inuu yahay oo aan wax siiyo tan kaleeto waxaan jitaabinayay naflayda ilaahay uumayoo dhan nooc kastoo tahay haddii aad nabadgeliso way ku aamin haddaad wax siisana way ku jeclaan shimbirahaanu laba nooc weeye kuwa waa midkan waaweyn oo waxaa annagu Cantallaabaan nidhaahnaa dad Qundullaa yidhaahana ugu jiraa nooca kalena booloboolaa la yidhaahaa ilaahay baa meeshaan ku beeray waxaa sabab u ahaa biyahan meesha jiifa oo togaan Garbaharey oo doog iyo aaran iyo abaarba aan biyo laga waayo biyo iska jiifaan yuu ku dhex noolaan jiray oo wuxuu ka guran jiray lullumada iyo malayga iyuu ka guran jiray meeshaanaan ku arkay waqtiyadii abaaruhu dhaceen oo aad u liitaan dareemay inaan asaga wax siiyana waa damcay bini'aadamkana waxaan tusahayay wixii aad wax siisay inay ku jeclaan hayaan wixii aad nabadgelisana ay hadda ku aaminahayaan taasaan tusahayay wuu ila saaxiibay dadkoo dhan buu bartay aad ugama cararahayo anigana markuu arko ugu soo yaacayo meel aan kasta rabaa waxaan hadda sii rajaynayaa inaan sii baro inuu shirarka nagala qayb galo shimbirahan ay nagala qayb galaan oo waftiyaasha nala soo dhaweeyaan oo dadka dhex socdaan yaan rabaa inaan sii gaarsiiyo haddii ilaahay idmo intaas hawlana waa ka saaxiib baad marka ka dhigatay oo waa saaxiibada caadi ah saaxiibada caadi ah weeye way aamineen saaxiib bay ila yihiin markay arkaan bay soo aadaan waxbaan siiyaayo hilib baan siiyaa iyo magaalada wax uga soo urushaa caynkaasaan bahalladaan isku qaabil muddo intee la eg baad marka hadda wax siinaysaa ilaa dhowr sano ilaa 4 sano waxbaan siiyay dadku markay ku arkaan adoo wax siinaya marka maxay ku dhahaan dadkan waxay yiraahdaan shimbirahan markaad wax siinayso ma dadka wax siis waxaan idhi shimbiruhu marna waa naflay inagoo kala ah oo baahan marka kaleetana dadkan ayagaaba ka duca badan sababtoo ah ayagu xaaraan ma cunaan boolin ma cunaan waa caynkaas laakiin dadkan ayagaaba xoogsi iyo xalaal iyo xaaraan waxay cunaan ayagaa xoogsanaya waa naflaydaas baahan ninna ma baryahayaan bannaankaasay iska joogaan marka dadku wuu la yaabaa laakiin wuu bartay hadda dad badan baa danaynhaya soo dhex galaan oo arkaan oo fiirsadaan oo sawirtaan dad badan baa danaynhaya tira ahaan marka waaga aad la saaxiibaysay intaa waa ka badnaayeen mise waa ka yaraayeen ayagaa marba kala taga labada noocba mar buu aalaa tagaa oo dhowr bilood maqnaadaa markii Cantallaagu tago waxaa meesha kaga hara 2 xabo ilaa 2 bilood ama 3 bilood buu maqnaadaa wuu yimaadaa soo dhan wata wuu noo yimaadaa boolobooladuna sidoo kale weeyo ayana 2 xabo uga harta meesha dhowr bilood bay maqnaataa way timaadaa marka intaan way ka yaraadeen waa soo bateen hadda inkastoo malaynayo maalmahan in qaar dhoofay waa gartay maxaad ugu baaqi marka dadka Soomaaliyeed iyo cid walba oo arkaysa xanaanada aad u hayso shimbiraha waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa
iyo dadka reegaya Soomaalida oo ugu baaqayaan inay arkaan oo ogaadaan nafleyda in la dhaqmi karo oo waxay aad wax siiso ku jeclaan hayaan waxaad ammaan gelisana ammaan gelin hayaan kuwa dadka walaalahooda ilma adeeradooda la Soomaaliyo la diin oo la dariska allayn haya waxaan u dhaqaaleynaa xawayaankii banaanka shimbirihi nooc kasto dalka ku nool baan heshiis la galeynaa nooc kasto dalka ku nool yaa rabnaa inaan nabad gelino marka nabad gelino saasi noo aaminaya ayagu hay isbadbaadiyeen baan leenahay bal nafleyda kale isdaayo ayagu hay isbadbaadiyeen waxna hay isku tareen si ay isu aaminaan waxna isu siiyaan isu jeclaadaan Jiraan Xuseen Yuusuf TV-ga caalamiga Somali Cable Garbaharey xarunta gobolka Gado